السلام عليكم saaxiibka Mariiqaan iyo barta YouTube ku leenahay taas channel waxaan soo gudbinayaa muuqaal yar oo gaaban oo ku saabsan sida maaragtay loola wadaago dadka maaragtay xogaha siraha ah iyadoo maaragtay aan lagu isticmaalahayn oo aan lagu arkahayn haddii xitaa qofka messenger-kaaga uu furo usaan kahayn wixii xogta qofka la wadaagtay waa muuqaal runtii aad muhiim ah very important ah iskana gaaban marka laakiin fahan u baahan marka rabto qofka maaragtay la wadaagto xogteena la wadaagto waxa maaragtay qof walba sir uu leeyahay marka qofku sirtiisa lala akhriyo oo waxa meesha qofka xogta uu la wadaagay si aan loo ogaanin oo aan loo arag qoraalkaygu ee iska maaragtay public iska yaala maaragtay meesha messenger iskaga jira marka waa muhiim inaad barato halka ayaa soo furaysaa halka marka aad soo furto waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay go secret conversation ay ku qoran tahay qofilkeeri saaran yahay macnaha waa xog waa sir weeyaan conversation kan wixii maaragtay qofka conversation ka hadasheen waa sir weeyaan buu leeyahay marka meesha ay ku qoran tahay qoraalka loogu talagalay in qofka chatting-ka lagu qoro tusaale oo kale waxaan ku siinayaa waqti bay leedahay xilli baa loogu talagalay saacad yar baad riixaysaa saacad yar ku agdhow baad riixaysaa 5 second bay leedahay 10 second bay leedahay 30 second bay leedahay hal minute bay leedahay 5 minute bay leedahay marka adigu inta ugu yar inta doonto ka dhigan kartaa qofku inta qoraalka uu ka akhriyayo baad ka dhigaysaa marka tusaale oo kale hadda aniga shantaas baa tusaale oo kale aan ku xiray marka waka aan qofka la wadaago qofkaasi aan qormo la wadaago intaas aan qorayaa hay baan qorayaa inta markaan qoro qofku qormada intuu akhriyo qoraalka waxa uu akhriyo kaliya baa wixii meesha uu ku sii jiraya kadib automatically isaga maartay barmadow buu saaraya wixii aan la arki karin waayo waa secret conversation waa maaragtay waa xog qarsoon weeyaan oo maaragtay aan la arkahayn marka uu sida maaragtay dadka la wadaagto oo qofka maaragtay aad u dirto oo sida aad u dirto qofkii wixii uu akhrinaya oo arkaya qoraalkii markuu dhamaadana isaga barta madow saaraya waayo barta madow markuu saaro qofkii maaragtay wixii ka xiro cid kasta hadday imka ay furto secret conversation-kaaga waxba ku arki maayo barta madow qofku ku tagay barta madow maxaa ku hoos jira waa waxba kalarka madow buu arkaa marka hadhowto barta madow marka kugu farabadato hadii maaragtay aad xoga farabadan ay la wadaagto halka inta ku dhufatay waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay delete conversation ku qoran tahay halka laftirkeed ku dhufanaysaa uu ka masaxaya waka uu masaxay saasana lagu masaxa barta madow iyaduna oo ku tirtirmay marka waa cashar muhiim ah runtii idin fiici doona oo very important dadku sir way wada leeyihiin marka waxa fiican wixii maaragtay marka la fahmo ee dadka loo soo gudbiyo in aadna maaragtay si faafiso oo aad la wadaagto khiyaarta kale si maaragtay looga faa'iideysto wadna mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi